oo su'aalaha dadweynaha Soomaaliyeed ka yimaada uu kaga jawaabo sheekheena Sheekh Maxamed Cabdi Uman xafidahullah. sheekhana su'aasha koobaad barnaamijka maanta saailku waxa uu leeyahay sheekh cadho ama isnidaamis sida loo yaqaan ayaa heshay marka anigoo xubinta taranka xoqaya ayay wax soo dhaafeen marka soonka ma iga jabayaa mise wuu jiraa sheekh? bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عملنا خالصا لوجهك يا ارحم الراحمين. haddii ruuxu u qasto inuu biyaha manida iska keeno asagoo sooman galmo la'aanna uu ku keeno, culimadu waxay u badan yihiin inuu soonkiisu jabayo. waxaa kaloo ay u badan yihiin in aan laga rabin kafaaradii galmada. haddii soonku galmo ku jabo kafaaradeedii inaan laga rabin ee keliya laga rabo inuu toobad keeno, maalinkaa uu jabiyeyna qalleeyo. haddiise laakiin uusan u qastin inuu biyaha iska keeno oo ku talagal la'aan ay u dhacdo isagoo xubinkii xoqanaya ama wuxuusan u qastin hadday dhacdo, markaas sida saxiixa waxa weeye inuusan soonku jabaynin. leanna khata'a iyo ismoodsiiska iyo ku talagal la'aantu halmaankay la axkaam tahay. nebiguna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam, ruuxii ishalmaama oo cuno cabba isagoo ishalmaansan soonkiisa ha dhammaystiro. soonka waxaan u jeedaa halmaanka iyo ismoodsiiskuna waa isku axkaam inta badan. aayaddiina alla wakiila tabaaraka watacaala laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na. marka haddii uusan ku talagal uusan jirin waxa ka yimidna ay mani yihiin, kolkaana isagu biyo iska keeno talagalkiisa uusan ahayn, soonkuma jabayo, wuu wadanayaa, wuu dhammaystiranayaa. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik. saa'ilka labaad waxa uu leeyahay sheekh xaafadeenna waxaa ku yaala masjid asal ahaan waxaa masjidka dhistay gabadh qurbaha joogta. boos ayada ay leedahay ayay ka dhistay. masjidka waxaa loo wakiishay nin sheekha. masjidka wuxuu ka dhigtay sida gurigiisa oo kale. marmarka qaar wuxuu ku qaylinayaa muwaadinkii, xataa furaha ayuu ka qaadayaa, waysaqaadka ayuu xidhayaa, masjidka ayuu xidhayaa maalinta uu doono. buuq ayaa naga haysta meeshaas, xataa salli haddii aan keenno uu naga tuurayaa. markaa sheekh laba su-aalood ayuu ninkan qabaa. su-aasha koowaad waxa weeye maxay diintu ka qabtaa sheekh in masjidka sidaas loogu dhibaateeyo jamaacada? sidoo kale su-aasha labaad, odaygaas haddii jamaacada masjidku maadaamay marar badan la hadleen ay garaacaan oo sidaas uu ku dhinto, diyo miyaa laga rabaa jamaacada? midda hore horta dadka muslimiinta oo mu'miniinta in la dhibaayo si guud waa xaaraan. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. haddii dhibku uu masjid kalena waa ka sii daran yahayo waxa dadka lagu dhibayo uu masjidka ilaahay yahay iyo ku cibaadaysigiisa. oo wuxuu soo gelayaa waman adlamu mimman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha ismuhu wasaca fii kharabiha. yacni cid ka dulmi badan ma jirto cid masaajidii cibaadadii ilaahay loogu talagalay in lagu guto ka hortaagan dadka. ruux ka dulmi badani ma jiro. marka arrinkaasi waa khalad. waxaa kaloo nabigeenna ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi 3 ruux salaadooda la aqbali maayo. saddexdaa waxaa ka mid a
من أما قوما وهم له كارهون نين ضد إمام ضدك أو إمامك يهينا أي كهنيان طبعا وأمرك يكون كهنيان وحجرة أما أخلاق حمديسة أما الدين حمديسة أما صلاتي أما وحون أذو جرأة مركي جماعة كو كهنيان إنه إمام أسي هذا صح ما أما وإنه واحد إسكسحه أما وإنه إمام من الإسكوري شوكته ذات كان صلاة دود اللي أقبلين بالنبي قدر صلى الله عليه وسلم مركع ما في أنا رقم في علمها طلبات يوجه طلبات السؤال شاء وذيك أمنين كامل قراعي كرا ما يها قراعينا سومالي دني قعان قادو قراعدهم ويان حل كلمة وتقنن واحد شراء هو هاي قراعة iyo aan ahayn hadii si wanaagsan oo aan dibidhicin loo xallin karo mushkilada haysata dadka jamaacadana waa in loo xalliyo hadii isaga si fudud loo bedeli karana waa in loo bedelo hadii loo bedeli kari waayana waa in dhibkiisa lagu sabro hadii meesha nidaam uu ka dhisan yahay nidaamka dhisan baa markaa taxsiiri kara ama meesha ka qaadi kara ama ciqaabi kara khalad ku sameeyo laakiin hadii la yiraahdo bulshadu ha garaacdo oo ilaa heer ma la dili karaa ay taagan tahay ma ha garaacina dad garaacdan waa loo soo heelin kadibna waa isleynaysaan dhiig badan baa daadan fawda dhici saas daraadeed bulshada looma gacan geliyo wax la yiraahdo idinku tilaabo gacan qaada hadii bulshada loo gacan geliyo daw isleynayso ma fawda ka dhacays hawsha waxa qaban kara waa nidaam iyo dawlad yaa qaban kara ruuxa khaladka galaya in ama la xidho ama la tacsiiro ama gacan loo qaado والله أعلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. سائلك استحاد وحولي هي الشيخ وان سحورتي كدبنا مسجد كأيان آدي صبح دي مركي صلاة لقلي ربي أيان حوغا انت عند عزدي وحا إسود عفاي وحيار كدبنا وان اسكتفاي منا لغلقانين أو صلاة دي أيان سي قلي أنا صفك كوبات إلى السنة وحي قيان أفك كيمد markaas marada ayaan ku tirtirtay ka waran sheekh manijaas ba salaadaas sameeyaan soo celinaya maadaama uu caloosha wax ka yimid yahay oo ka soo noqday yahay waa mantaga nijaasanimadkiisana culimadu waa u badan yihiin naska iyo daliilka loo daliishado daciif ha ahaado laakiin way u badan yihiin mantagu inuu nijaasay waxa kale u badan yihiin in salaada sharti ay u tahay in jirkaaguna uu yahay daahir maradaaduna daahir tahay meeshaad ku tukanaysana daahir tahay haddii saddexda mid la waayo inay salaadu ay burayso oo inaan asaxayninna way u badan yihiin culimadu sidaas daradeed madhabka ay culimadu u badan yihiin markii la qabto صلاة ساكو تكتي ما أصحن لأن مرضى ونجاس أفكار ونجاسات تكتي رأيك جمهور تمرك لقبتوه مسألة مسألة خلافية والله أعلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. سائلك أفراد شيخ وحندقنا هي قربها غير كيغا حاسك إيا المها أوفريكا دقن أيان سندكي مر أما لبا مر سوق غيره بل أما كير أيان لجوغا marka sheekh salaada ma qasrin karaa hadii aad ilmahaaga iyo gurigaaga timaado musaafir ma tihid ilaa maad hal maalin la joogtid ilaa maad saacada la joogtid mar haddaad gurigaaga joogtay ilmahaaga waa meesha deganayd waa ruux laba meelood iyo saddex meelood waa deganaan karaa laakiin markuu gurigiisii iyo ilmihiisu meeshay deganayeen u yimaado waa muqiim salaadaha ma gaabin karo لأن صلاة قابين توضع حلوق تلقى مسافر سفر لو قابيا جماعة إياه ويكلا دوين قابين إياه صلاة إلا كل ميون ليسوكيو سببك على كيني كرا لكن صلاة دي إلا قابيا أفرت أهيد والله بلد تكدو سفر بس كيني كرا روح أنا سفر معه قرقي سوچوغا سيدا استرادت ما قابين كرتيد صلاة ما يستر والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائلك شناد وحولي هي
sheekh ducada salaada dabadeed la ducaysto ma intaan la salaamo naqsaninba mise waa bacda salaam sheekh baan bari dhaweyd ka maqlay salaada marka laga baxo wax duco ah lama iman karo ee waa intaan laga bixin anna salaada kadib ayaan ducaysan jiray ducadu salaada gudaheedana way tahay salaada ruux markuu ku jiro uu ducaysanayo ataxiyaadka iyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam kadibna intaadan salaada ka bixin ducooyin baa ku jira salaada markaad ka baxdo kadib adkaarteedana ducooyin baa ka mid ah oo waxayba ka bilaabaan marka salaada ka salaamo naqsootood ka baxdo astaghfirullah 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 saddex goor ay ka bilaabanba waana duco oo istighfaartu waa nooc ducada ka mid ah ilaahu ii dambi dhaaf waa marka ducooyin badan halkaa way ku jiraan salaada adkaarteeday galaan marka laga baxo salaada sidaas daraaddeed salaada gadaasheeda duca ma geli karto sax maaha sawaabna maaha adkaarta waxaa ku jirta ducooyin baa ku jira hadday su-aashu tahay ducada ka madax bannaan oo markuu ruux adkaartiisa dhammaysto uu gacmaha kor taagayo hadday tahay taa iyada ah nebiga sal alla alayh wasalam kama sugna inuu laasimay bimacnaa waxa weeye si guud adilada ducada ku soo arooray waa loo deliishan karaa guud ahaan laakiin sidii sunno laasim oo kale ruuxu inuu u laasimo maaha oo haddaad laasimtood mar walba samayso waxay u muuqanaysaa sidii wax nebiga sidaa uga sugnaaday oo waqti kasta sidaa samayn jiray marka waxaad samaynaysaa mar waa ducaysan markaad u baahato markaadan u baahanina waa iska daynaya mar samee marna iska daa si ayna u noqonin sidii sunno mutabac oo kale u noqonin waa hadday tahay ducada sida madax bannaanood u ducaysanaysa waay amaa ducooyin ahaan haddii la yidhahdo adkaarta way ku jiraan ducooyinku wallahu aclam jazaak allahu khayran wabaarak allahu fiik saa-iilka lixaad waxa uu leeyahay sheekha aad baan u salaamayaa waxaan weydiinayaa su-aal u dhigan sidan soo socota waxaan bartay gabadh joogta dalkii anna qurbaha ayaan joogaa muddo yar oo aan wada soconnay kadib waxaan go'aansanay inaan waalidkayo la socodsiinno oo in aan wada hadalno aan u sheegno waanan ogeysiinay ilaahay mahadii labada dhinacna raalli bay ka yihiin in aan sheekh sii wada hadalno wax dembiya ma ku jiraa maadaama ay waalidkii naga warhayaan waad wada hadli kartaan laakiin dee hadalkeeda waxaa kaaga bannaan naag ajnabi ah inta kaaga bannaan ubaa kaaga bannaan haweeney ajnabi ah hadalka kaaga bannaan unbaa tan kuu doonnana kaaga bannaan maxaa yeele haweeneyda hadday kuu doonan tahay ama gabadhu kuu doonan tahay waa ajnabi waalidkaa isku kaanna ogna macno ma samaynayso waalidku hadday isku kiin ogyihiin sheekadiinna ogaantoodu ma xalaalaynayso wax xaaraana sidaas daraaddeed ilaa laguu meheriyo ajnabi bay kaa tahay dumarka ajnabiga waxaa jira hadal aan lagula hadli karin ayaguna ragga ayna kula hadli karayn sida fii suurati alaxzaab allah markuu la hadlayay dumarkii nebiga sal alla alay wasalam falaa taqdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi marad dumarkii waa lagu yidhi hadalka ha dabcinina oo midka qalbiga ka jiran uu damca galo hunguri galo marka sheekada dadka xalaasha isu ah ee isqaba sheekada dhex marta ee ku saabsan jinsiga iyo gogosha iyo xidhiidhka noocaasa dad ajnabi kale ah ma dhex mari karto leanna waxa way fitnay u tahay irid u tahay marka inta kaaga bannaan waa inta haweenayda ajnabiga kaaga bannaan laa akar intaa ka badan maya wallahu aclam jazaaka allah khayr wabaarak allahu fiik saa-iilka toddobaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan nadar ku galay inaanan samaynin dhowr nooc oo dembiye ah markii koowaad waxaan dhahay haddii aan sidaas sameeyo waxa aan soomayaa ramadaan kasta gadaashiis 6 beri oo wadac ah inta noloshayda ka dhiman isla markii waan ka laabtay waxaanan dhahay haddii aan sidaas sameeyo waxaan soomayaa 10 beri haddii aan dembigii sheekh sameeyo oo ku dhaco labadaas nadar mid kee fulinayaa su-aal kale oo iyaduna nadar ku saabsan oo taa kaag dhow
وسائلك السديدات وحوليه يا شيخ نذر أيان قلي صدقة ما بحين كرا مسهل كي نذر كأي جلسة صدقة داس middan hore oo ku saabsan labada hadal ee nadarka uu galay 6 bari iyo 10 bari dambigiina uu sameeyay jawaabteedu waxa weeye 10ka bari haddii ujeedadaadu iyo qasadku uu yahay 6dii oo aad kordhisay oo meeshii ay ka ahayd 6 baan 4 ku daray ujeedadu hadday sidaas tahay nadarku waa mid haddii 6duna ay gooni ahayd oo qasad gooni ahayd 10kuna qasad gooni ahaydna waa laba nadar oo 6dana inaad soonto 10kana soonto way kala madax bannaanaan marka haddaad isdhex geliso tiradii uun aad kordhisayna waa hal nadar haddii si kala madax bannaan aad u nadarka u gashayna nadarka markaad gashay kadib ma burin kartid nadarku wuu guntami markaad gashaba kadib ma burin kartid waa inaad fuliso hadduu daacaya su-aasha hore jawaabteedu waa inta midda dambe haddaad nadar gasho nadarku si ahaantiisaba sida nabigu sheegay sal alla alay wasalam ilaahay qadarkiisa wax kama bedelo ruuxana nafci uma soo jiido dhibna kama celiyo culaysna kama qaado nabigu wuxuu yidhi innamaa yustakhraju bihi min albakhiil ruux bakhayl oo ilaahay daacadiisa ku bakhaylay unbuu nadarku ka soo saaraa wuxuu ku bakhaylay saas daraaddeed gelitaankiisa inuu ruuxu isku laasimiyo oo isku xusleeyo ma aha haddiise laakiin aad gasho adaa qoorta la galay waa inaad fuliso hadduu nadarku daacaya man nadara an yutic illaaha falyutichu nabigu sal alla alay wasalam ruuxii nadar ku galay inuu ilaahay ateeco ha ateeco yuufuuna binnadri markuu ilaahay sifeynaya mu'miniinta nadarkay oofiyaan way fuliyaan nadarka marka aad fulinayso waa shaygaad ku nadartay waay soon hadduu yahay soon salaad waa salaad sadaqo waa sadaqo xaj waa xaj shaygaad ku nadartay waa inaad la timaado haddii aad kari weydo oo awooddiyo tabartu kuu diiddo markaas nadarka beddelkiisii waxaa gelaya kafaarada dhaartaa gelaysa waana mid ay ku fasiraan xadiidkii fi saxiixi muslim nabigu sal alla alay wasalam kafaaratu nnadri kafaaratu lyamiin nadarka kafaaradiisu waa dhaarta kafaaradeeda ruuxii marka wuxuu ku nadaray kari waaye nadarkii wuxuu isu beddelayaa dhaar oo kale kafaaradii dhaartuu gudanaya oo kafaarada dhaartu maxay tahay qoor xoraynteed dad kari weydo yacni 10 miskiin quudintooda ama arad bixintooda haddaad kari weydo 3 beri inaad soonto marka halkaasay marka haddaad kari weydo waaye wixii aad ku nadartay oo aad awood u weydo marka kafaarada dhaartaa loo beddelayaa wallahu aclam جزاك الله خير وبارك الله فيك سائلك سقالات وحوليه هي شيخ تكامدي waxay sameysteen number agent ah oo lacagta loogu dirayo qofkii waxa la oranayaa agentkaas lacagta ku dir qofkii miskiinka ahaana hadduu meeshaas lacag ku diro lacag kale oo aanu rabin ayaa ka raacaysa qofkii dukaanka lahaana wuxuu u samaystay numberkaas inuu lacag ka helo shirkadda bil kasta oo lacag ayaa u soo dhacaysa oo ay shirkaddu siinaysaa masaakiintiina sheekh way ku dhiban tahay arrintaasi ma bannaan tahay mas'aladaasi waxoogaa fiiro dheeraad ay u baahan tahay fiirada dheeraadkay u baahan tahayna waxa weeye ruuxa markaad wax kala gadanaysaan inaad kaash siiso iyo inaad meel aada ugu dirto labaduba waa sax kharashka diritaanka inaad adigu bixiso oo adiga ay kaa go'do oo aad sidaa raalli ku wada tihiin ama curfiguba sidaa yahayna dhib ma laha oo waxaan kaa go'ayaay lacagtii aad ku iibsatay badeecada uun qayb ka mid ay geli waa haddii curfi ay tahay oo dhaqanku yahay ama labada ruuxba raalli isaga noqdaan ishkaalku wuxuu ku jiraa lacagtan la dirayo agentiga loo dirayo manfacada ka soo gelaysa
dukaanka ama ruuxa iskale ka soo galaysa ee haddana shardiga ah ku xidhan halkaas waxay u baahan tahay marka daraasad siyaada in lagu sameeyo ma beec laba shardi lagu xidhayba oo beeca laba shardi markuu ku xidhan yahay baadil buu noqonayaa waa buraya ma meesha waxa ku jirta jahaala ku jirto lacagtan meesha ka soo noqonaysa ruux u soo noqonaysa jahaala ku jirto oo caqdigay saameyn doonta arrinkaas marka waa arrin u baahan daraasad siyaada ah in masalada aan ugu noqdo iima cadda hadda laakiin asal ahaanteeda qaybteeda hore baan intaas ka dhigi karaa wallahu a'lam jazakallahu khayr wa barakallahu fiik sa'ilka tobnaad waxa uu leeyahay sheekhana maadaama nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam hadaaya al-ummal qulul ma banaantahay hadiyadaha la siinayo macallimiinta ardada lacagta ka qaata bil walba hadiyadahaas oo ay siinayaan ardada ama waalidiintu xadiidka horta aan idin sheego wax weeye hadaaya al-ummal qulul shaqaalaha dawladda wixii hadiyada la siiyo waa khiyaano waa musuqmaasuq يعني روح انتو جاكو كفرديو اما حيل هايو اما شغالة دولديد يهي هديد لما سينكرو لأن هديد ده واحد لغو سينا يا كرسيغان سببتيس كرسيغان يساقو مالها ومدى إسكاله شريعة ماشا سي وحي حيريسا مسوق ماسوق انو ماشا كسو لونتا لديدين وماشي اي رشوة يلالوش ايو يعني waxa weyn jeclaysi halka inay gashaa la diiday markaas irida dhan la xiray su'aashu waxay tahay marka xadiidkaasi ma soo galaya hadiyadaha macallimiinta la siiyo jawaabtu waxay tahay macallinku haduu shaqaale dawladeed yahay oo jihar rasmiya ay mushaharka siiso shaqaale u yahay wuu soo galaya xadiid oo waa umaashi buu kamid yahay shaqaalihi buu kamid yahay haddii macallinku jiha kale u shaqeeyo jamciyad buu u shaqeeyaa dugsiga cid kale iska laho uu u shaqeeyaa cidduu u shaqaynayay oo meesha u joogay ayaa u diiday inuu wax qaato hadiyad qaato ayagoo ka cararaya mafaasid dhibaatooyin bay la timaadaa oo dugsiyada iyo jamciyadaha iyo muassasaadka iyo inta badan waxay u diidaan waxoogaa waxaa ka yimaada isku dhac macallimiinta dhexdooda macallimiinta iyo maamulkii waalidkii waxba meesha soo gala ayagoo marka mafsadada laga cararayo hadii ama jamciyada ama muassasada ama jihada uu macallinku la shaqeynaya ay diido ayadana lama siin karo hadda in labada midina jirin waalidku macallinka ilmihiisa inuu wax siiyo waa ihsaan wixii ujuuradii lagu heshiiyay waxay ka dhigan tahay aqdiga macallinka iyo waalidka dhexmaray waa aqdu ijaara waay macallinku waa la ijaartay waxa loo ijaartay inuu ilmaha quraanka baro ajiirka aad shaqaalaysateed shaqada u dhiibatayna in wixii aad kula heshiisay aad wax ugu darto waa min husni alqada nabiga inuu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay oo waxa kamida muamalaadka aad u qiimo badan yani waxa weeye husnu alqada wal iqtida markaad gudayso xuquuqda lagu leeyahay in aad wanaajiso oo aad wax ku darto dalika min husn alqada dhimala marka macallinka haduu xaaladda dambe yahay waalidku wuxuu siin karaa oo waa wanaagii bay kamid tahay saankii bay kamid tahay wixii kuluga heshay wax ka siyaasan hadii la siiyo dhimalaha laana markaasi xadiidka hadaaya al-ummal qulul ma soo galay laana markaasi caamil uma ahidna waa ajiir aduu ku yahay shaqaale ilmaha wax baraa laakiin jiha ma raacsana musuqmaasuqna marka loogama baqayo oo sababtii arinta loo diiday wallahu a'lam jazakallahu khayr wa barakallahu fiik sa'ilka 11 waxa uu leeyahay sheekh Allah xifdiyo waxaan weydiinayaa diintu maxay ka qabtaa in xayawaanka la gubo dhawaan waxa baraha bulshada la soo dhigay arin taabatay oo ah nin Soomaali ah oo dab intuu shiday ku gubay xayawaanka la dhaho dawacada isagoo muuqaal waliba ka soo duubay iyadoo ka dhex qaylinaysa dabkaas marka sheekh arintaas diintu maxay ka qabtaa ninkaas badaa'ish baa dadku gubtay noolaha in la gubo ma banaana
noolaha bini aadanka dhiba cayayaanaadkii xayawaanaadkii waa la dili karaa laakiin in la gubo waa xaaraan nabigeenna sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih al-bukhari wa ghayrihi laba nin buu amray oo gaala ah in la soo dilo wuxuu yidhi may guba meeshaad ku arkaan guba kadib uu nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam ha gubine meeshaad ku aragtaan dila buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam lianna dabka allaha iskale keliya wax ku cadaaba xadiidka kale abu daawuud iyo axmed iyo soo saareen abu daawuud iyo axmed soo saareen wuxuu tilmaamayaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim degmo ay leedahay quraanjo bay gubeen qaar ka mid ah saxaabadu nabigu wuxuu arkay sallallahu alayhi wasallam yaani waxa way xeradii iyo degmadii iyo buulkii ay lahayd ee quraanjadu oo la gubay wariyaa gubay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam annaga gubnay bay dhahay markaasaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laa yanbaghi an yu'adhiba bin-naari illa rabbuna dabka inuu wax ku ciqaabo ku cadaabo ma mudna ilaa rabbigii dabka iska lahaa mooye sidaas daraadeed ma banaana in la gubo waxyaalaha mu'diyaadka dadka dhiba ama xayawaanaadka duurjoogta ama cayayaanaadka waxyaalaha dadka qaniina injirta hadday tahay kaneecada hadday tahay yaani kutaanka hadduu yahay waa la dili karaa laakiin lama gubi karo waa khalad marka dacwada ma disho intaad gubayso dil inaad dishaa lagu ogolyahay haddana waxaa foolxuma ah inaad haddana duubto ood baraha bulshada dhigto oo dembigaagii haddana sii faafiso khalad kale waay arrinkaasi marka sax ma aha dabku ma aha shay wax lagu ciqaabo oo dadka lagu ciqaabo ma aha fi al-asli wallahu a'lam jazakallahu khayr wa barakallahu fiik sa'ilka labitoonaad waxa uu leeyahay sheekh hanti guriga ah baan ku leeyahay magaalo kamid ah magaalooyinka Soomaalida magaaladaas waxa ka dhacay dagaal waana nala ka qixiyay hantidayadiina waa la bilaqaystay qayb kamida intii kalena waa la bilaqaystay intii kalena xoog baa lagu haystaa marka haddii sheekh hub la gadayo aan lacag ku daro oo ka qayb qaato si aan hantidaydii u difaacdo dambi miyuu iiga imanayaa jawaabtu hadday haa tahay xalku waa sidee sheekh hanti guriga ah baa la iga haystaa laba arrimood baa kala duwan in adiga si shakhsi ah xoolahaaga iyo naftaada iyo ehelkaaga lagu soo doonto marka waad iska celin kartaa waad isdifaaci kartaa haddii sidaa lagu dilo shahiid baad tahay kaa ku soo weeraray haddaad dishana waa ahlu naar sida nebigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa meesha ku imaanaysa xadiidka nebiga sallallahu alayhi wasallam man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid waa marka adiga lagu soo maago gardarro lagugu maago waayo taasi waa suuro gooni ah suurada labaad in laba kooxood ama laba qabiil oo muslimiinta ka mid ah ay islaynayaan ayagu marka hanti kala qabsadaan oo islaayaan oo dhiigooda daadiyaan oo xaaladaasi ma aha xaalad shakhsiya ma ahee waa fitna la yidhaahdaa markaa fitna waxaa ku soo arooraya axaadiista faraha badan ee nebiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam ee tilmaamaya fitnada in laga cararo oo aan waxba lagu darsanin lianna haddii lagu yidhaahdo dagaalka hubkiisa wax ka iibi dagaalka wax ka gal gurihiina laydinka qabsaday wax ka soo dhaxsada qolihii haystayna iyaguna ay muxuu ahay iyaguna dagaalamaa fitnadii iyo dhiigiyo sii daata iyo burbur iyo waxba aan soo noqonin baa soo meesha ka imaanaysa shariicadu xaaladda iyada marka waxay leedahay markaasoo kaleeto wixii kaa maqan haddaad jid wanaagsan ku heli kartana khayr haddaadan ku heli karayninna maalina maanta ahayn baad heli doontaaye diintaada ka ilaasho dagaal fitnana ha gelin halkaa marka lagulama qiil bixi karo axaadiista tilmaamaysa xoolahaaga inaad difaacan karto lagulama qiil bixi karo soomaaliduna markay qabiil isu laynayso reer walba isagaa gar leh markaasuu wuxuu daliishanayaa man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid annagaana la soo weeraray xoolahanagii dalkanagaan difaacanayna shuhadaan nahay
war laba mu'min oo isdilayso oo isbaabi'inayso oo qabiil isku baabi'inayso shahiid ma wada noqdaane nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu labada muslim markay iskulmaan oo ay dagaalamayaan midba seeftiisa wato alqaatil wal maqtuul fi an-nar wa nabi sallallahu alayhi wasallam ka dilay iyo kala dilay waa ahlu naar rasuulku sallallahu alayhi wasallam markaas xaaladda fitnadu taagan tahay oo koox iyo qabiil la isu laynayo isaga fogow guriyana kuma soo dhaxsan kartid xoolana kuma soo dhaxsan kartid dhiig iyo aafana waad geli aakhiradaadana waad sii fitnaduna way sii siyaad haddii ay xaalad khaas oo ku haysato tahay oo adiga si gooniya lagu maagan yahay cidda ku maagan marka waad iska celin kartaa waa midda hore waayo oo xadiis ku imaanayso labada xaaladood marka la isku qalin saasay u kala duwan yihiin wallahu a'lam جزاك الله خير وبارك الله فيك سائل كاستحيت مناد وحولي هي شيخ نين أيا لعق دين أهيديتي لعقتي وحن كوكالي جناعسي نينكي لعقت لهانا وانوف شيء كدب شيخ لعقتي هي فائدة دي أيضا شيء بان ربعنا سكك بحيو لعقت أس دين تيجو سكما لقى بحنيا لعقت دين تكوا سكوا لقى بحنيا laakiin waxa sakada ka bixinaya ninkii lacagta iska lahaa adiga lagu leeyahay deynta qaatay kama sakaynaysi deynta ee deynta waxa ka saka bixiya ruuxii xoolahan iska lahaa laba gacmoodna xoolaha lagama saka bixiyo oo adigii deynta qaatayna ka saka bixin maysid kii ku siiyayna ka saka bixin maayo labadiina midkiin inuu bixiyo waa ka xoolaha leh baa marka bixinaya إلا هذا حولها ملي الدين بيكوتاه حولها دين تكوه على جمال سكيو لكن ذات كي دين تلها بالكيد حولها لها أي سكيد حولها على جربها والله أعلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك سائل كافر تمناد وحولي هي شيخ وحمويدين يا شيخ وحن ربا إن لاين كعتو قبر شوكت تبدل وحين يجا ليسا سأيوه شلعك أنا أنا تقعد بدأ يمشي عن كبار جور بين أبور يا لوير بين أيان سمي سنة إننا سأن سفارة عمرنا هدي أن سدا هدي أن ساس كنت أقعد بدأ حولها عن كسر شقة يستوى سدا النقل تهذا كله جور كاس بين أبور مركي عن كل ضعفه كبعد ما كتبت كيل كلام شخص صومالي واي هؤلاء يعني الله المستعان intaasoo khalad oo isa saaran waa waxa la kala gadanayo waa xaraan lacagta la kala qaadanayana waa xaraan guurkan beenbeenta ana waa xaraan waxa loo socdana asaguna kama liito marka waa intaasoo mafsado intaasoo dhib oo is saaran waa waxyaalaha noocan oo kale ah خيانة يبين بكسر يسيهن خيانة يبيننا حول لجمر راديو بحيث إذا كوسو قالنا وحران مسألة اللباد شرع هذا أحكام تهذا عيار لجمر دكتور ولا تتخذوا آيات الله هزوا إلهي آيات كيسة جس هكذا جور مقعويال أو بين أو شرع هذا عن جور وأقولين وخلط هذه أبيه يولي قبل دلائي أوسن جورنين جور ما وبين ما كتوبت كيني كرا جوابت وها دم بيان لقيت توبت كيني كريم نشرو توبته شركة ذنوب تقويني إلهي وكل عفا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سؤاشا قدام بيسا أما فقرة قدام بيسا وحي تهي هذان ضلكي أن تجي أسعدي أن تجو وحي أن كشق يستو حلال ما إيه جوابت وها لأن وحوي ويكلا دويهن شدكي أبو صامرتي iyo waxaan hadda aad qabanayso uu kala duwan yahay jidku khalad buu ahaa intaasoo xaaraan baa isa saarnay laakiin meeshii haddaad timid xamaalashada aad ka xamaalanayso inay uun sax tahay baa muhiima iyo laf ahaanteedu wixii markaa saas aad ku heshaay way bannaan tahay
waana masalada ay culimadu yidhaahdaan aljiha munfaka waa laba jiho oo kala go'aya waay tanna waa gooni oo shaqada ah wixii aad soo martay iyo waxaad u soo martay jidkaad soo martayna waa gooni masaa'ishaasi masalada waxaa ka mid ah tusaalayaasheeda oo laga yaabo inaad sidaa ka badan u fahmi kartaan yacni dumarka maxram la'aanta safrayoo kale ee soo ganacsanaya hindiya aadi jaynay aadi hong kong bay aadi alaab bay soo qaadanayaan maxramna ma wado safar xaaraam ay ku jirtaa alaabtii markay keento oo badeecadii keentana way ka faa'iidi safarkii waa qalad ganacsiguse waa xalaal faa'iidaday heshay waa xalaal laakiin jidkii ay martay iyo wasiiladay u martay safarkii maxram la'aanta waa xaaraana masaa'ishan marka waxaa la yidhahdaa waa masaa'isha la yidhaahdo jiha mufaka waa laba jiho kala fakanaya waaye laba xugun bay kala qaadanayaan wasiilo iyo qaayaba hisu ahaadeen wallahu aclam jazaaka allahu khayr baarak allahu fiik saa'ilka 15aad waxa uu leeyahay sheekh 13 sano ka hor ayaan gabadh si xaaraan isugu tagnay muddo kadib wadankii waan ka soo tegay gabadhii way soo raadisay waxayna ii sheegtay inay aniga uuri leedahay dabadeed labadii waalid baa ballamay markay umushay baa la igu meheriyay sheekh intaa kadib waxaan damcay inaan soo kaxeeyo oo qurbaha keeno gabadhii iyo inantii ay dhashay intaanaan ismehersanin iyo ilmo kale oo ay ii dhashay markaan guursaday kadib dabadeed dhiig baa naloo kala qaaday ilmihii jawaabtii waxay noqotay in ilmihii hore aanay biyahayga ahayn balse qof kale yahay sheekh markii aan weydiiyey waxay ii sheegtay inay ogeyd xilligii uu calool galay ilmaha hore iyo qofkii iska lahaaba sheekh su-aasheedu waxay tahay ilmahaas aabba ma u noqon karaa marka uu weynaado ee lasoo doonto ma guurin karaa gabadhaasi waa gabadh aabba la'aana si kale haddaan u dhahnana waa garac hadduu nin kala dhalay iyo haddaad xataa biyahaaga ahaan lahaydba horgal baa la yidhaahdaaye ilmo sharciya maaha ilmo aada waalid u tahayna maaha xataa hadday biyahaaga yihiin siday culimmadu u badan yihiina daliil ahaana raajixa xataa hadday biyahaaga yihiin ajnebi bay kaa tahay welina uma tihid aabbana uma tihid lianna inaad ilmaha aabba u noqoto nasabkaaga ku abtirsado xadhig saxa waa inuu ku dhasho maadaama ay sidaas tahay gabadha aabba uma tihid xataa haddii d n a-giinnu iswaafaqo dhiiggiinnu iswaafaqo xataa ood adigu hubo laho inaad dhashay shaqo kuma lihi haddaad ixsaan u samaynayso ood korinayso oo adig ku jirtaa yaa guurinaya hadday timaado intaana taa u gudbin gabadha la tuuri maayo sharci darray ku dhalatay laakiin waa bini aadan ixtiraam leh hooyadeed bay ku abtirsan abtiyaashay dhankooday aadi xaggaasay aadaysaa hadday noqoto dhanka dhaxalka iyo maxramka iyo dhankaasay aadi carruurtan aad adigu dhashay xagga hooyey walaalo ka yihiin gabadha isku aabba ma aha laakiin waa dhanka hooyey walaalo ka yihiin marka gabadha hooyadeed bay aadi markii loo baahday in la guuriyo yaa guurinaya gabadhu weli ma laha nebiguna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam alsultaanu waliyu man laa waliya lah gabadhii aan weli lahayn madaxa muslimiinta iyo sultaanka muslimiinta guurinaya oo weligeeda haddii meeshaa marka qaadi ka jiro ama dowlad muslima ay ka jirto ama nidaam islaamiya ka jiro dadka noocaasa ayagaa weli u noqonayo guurinaya goortii loo baaha haddii la waayo oo meesha nidaam islaamiya uusan ka jirin ama qaadi sharciga uusan ka jirin yaa guurinaya markaska islaamigaa guurinaya bulshadaa meesha joogta imaamka ninka sheekha u ah baa guurinaya haddii la waayo reerka meesha degan ninka odayga u ah iyo suldaanka u ah baa guurinaya ama ugaaska u ah ama malaaqa u ah shaqa u soo baxday malaaqyadii ma oga iyo ugaasyadii meelaha iyagaa ka ah iyagaa maamulka ah iyagaa nidaamka ah iyagaa madax ka ah
gabadhii marka weli loo waayo waa in malaaqa iyo ugaaska iyo suldaanka iyo isimka loo geeyo waa haddii meesha nidaam uusan ka dhisanayn oo qaadi uusan jirin meelaha qurbaha marka la joogana maraakista islaamiga ah iyo aimada iyo culimada guurinaya gabdhaha noocaas oo kale markii weli loo waayo gabadhaasi marka weli uma tihid umana noqon kartid muslimiintaas kalaad ula siman tahay wallahu aclam jazaaka allah khayr baarak allah fiik saa'ilka lixitobnaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ka shaqayn jiray cisbitaal aan lahayn meel aan ku tukanno waxaan ku tukan jirnay kaniisad ku dhex taalla cisbitaalka mararka qaar waxaa dhacda in maalinta axadda ama sabtiga ama maalmaha kaleba aan isugu nimaadno dadkii kale oo ay iyaguna ku cibaadaysanayaan marka kaniisadda ma lagu tukan karaa sheekh الإمام البخاري عليه رحمة الله وحو بابه باب الصلاة في البيعة كنيسة إن لقوت كذو يحكم كذا يباب سمي الإمام البخاري عليه رحمة الله كذب وحو كسو قوري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة الراشد وحو كسو قوري إن أيري إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور أو كما قال كنيسته إن أنه كلمينه سوي الرضا إيو وحيالها ندعى عبدان يكون حجر درته وحكى له أسكسو قوريي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه إنه كنيسته كل حتو كان شري هدين اللهين وحيالها عبدان تالوين كما سوي الرضا تاجن هدين اللهين بخاري intaasuu masalada kaga gaabsaday daahirkana waxa ka muuqata inuu qabo hadayna markaas sawirro dhex oolin in lagu tukan karo sidaana culimo kala qaba oo ku raacsan yani labada hadal Umar iyo Ibn Abbas uu ka soo guuriyay culimo kale al-Imam Ibn Qudama alayhi rahmatullah fi al-Mughni culimo kale oo salafkii kamid uu ka soo guuriyay asaguna uu rajaxay oo sidaas ay ila xoog badan buu حتى هذا يسوي رد حيالان خلاف باكو جرا صلاة لو ده تكنا يوم حرام با مكراها كوجر تما بنانته صدح ذوالي وقال يا بنين يعود لشدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتو سر مكه كهجرونين كعبده او اصنام تحت الله اي النبي كنت كذا صلى الله عليه وسلم وانتو مكه جوغي او سر مخو هجروني والنبي صلى الله عليه وسلم marka waxay leeyihiin haday xaaja timaado ruuxa muslimka u baahdo meel kalena waayo kaniisada dhexdeeda salaadu way ku asaxaysaa hadayna wax sawirra dhex oolin ayadu mushkilo weyn ma laha waa hadii baahi timaado way oo waxay soo galaysaa umumkii xadiidka nabiga inuu sallallahu alayhi wasallam waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura dhulka oo dhan waxa la iiga dhigay meel aan ku tahaara qaato iyo meel aan ku tukado fa inama adrakatku salatu fasalli وكما قال صلى الله عليه وسلم مال الله ماشي صلاته كو قبته كتكو عموم كحديث كاسي سوق اليوم مال نص ديدي مويانه مال كليتو ان صلاته كو اسحين المراه marka haday sawirro dhex yaalaan marka doodu way si adag tahay laakiin hadayna sawirro dhex oolin markaasi culimadii salafka kamid ee fuqaha badan baa qaba inay banaan tahay oo lagu tukan karo salaaduna way asaxaysaa laba gooraba marka laga yimaado waxaan kaniisad ahayn xukunkeedana qaadanaynin qolalka yaryarka ee meelaha publica ah ama kaniisad ama muxuu ahay airborada ama meelaha caamka ama moolalka oo kale meerarka qaar kood waxa laga sameeyaa hal qol oo loogu talagalo cidii cibaadaysanaysa marka muslimka gali uu isaga tukan kii kristanka iimaan waxoogagiisu ku sabaysan hunduuski baa iimaan waxoogagiisu isaguna ku farsamaysan qolalka noocaas oo kala kaniisad ma xukum kaniisadna ma qaadanayaan ee wax weeyaan ayagu way ka duwan yihiin oo hadii marka wax maxduur sharci uu san jirin waad ku tukan kartaa iyaga wax dhibo male wallahu a'lam jazakallahu khayr barakallahu fiik saa'ilka 17 waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahayn agoon hooyo waxa guursaday wadaad adeer ah anagoo aad u yar yar waliba aan qaan gaarin waxa hooyo iyo adeer la siiyay laba caruur ah xoolihii aabe inooga tagay ayaanu ku wada barbaarnay dhamaantayo labadaas adeer u dhalay iyo annagii hore adeerna wax xoolo ah uguma soo darin xoolihii agoonta caruurtii u dhalay
isaga lafahaantiisu xoolaha agoonta ayuu wax ka intifaacsan jiray inta uu xaafadda joogo. anigu waxaan ahay buu yidhi ninka carruurta agoonta ugu weyn. markaa sheekh allah ku barakeeyo, adeer maxaa xal u ah? annagu hadda waxba kama rabno, laakiin waxaa kulayl nagu haya wadaadka adeerkay ah ee xoolaha agoonta cunay, lagana yaabo inay aqoon darro iyo jahli u geyso. agoonta xoolaheedu in xaq darraa lagu isticmaalo waa xaaraan. qur-aanka waa ka ilaahay ka hadlay tabaaraka wa tacaala, aada loo soo celceliyey, ilaa heer la gaadhsiiyey inuu ruuxa agoonta xoolaha xaqdarro ku cunaya inuu naar calooshiisa gelinayo cunaya. muubiqaadku nebigu ku daray sal alla alay slam waxaa ilaa bini aadamka halaaga agoonta xoolaheeda in la cuno, aad baa la isaga ilaaliyaa. hal ruux baa loo oggolaaday agoonta xoolaheeda wax ka cuni kara. ruuxaasi waa ruux xoolahooda ka shaqaynaya, u ilaalinaya, ku mashquulsan, haddana wuxuu kaga kaaftooma aan lahayn. waa ka ilaahay fii suurati الnisaa ku yidhi rabbi tabaaraka wa tacaala, man kaana ghaniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf. waa baahan yahay, xoolahoodiina wuu ka shaqaynayaa si wanaagsan oo aan ku xadgudub lahayn waxa uga cuno. adeerku marka hadduu xoolaha agoonta u taagnaa iyo korintooda iyo barbaarintooda ku mashquulsanaa, markaasi waxa weeye wax kale uu kaga kaaftoomana uusan lahayn, waa midkaa ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala uu aayadda ku sheegay u galaya. hadduusan wax dan ah iyo maslaxa u haynin agoonta, xoolahoodana uusan ka shaqaynin, ayagana uusan wax mashquula ku hayn, ama wuxuu kaga kaaftoomana haystayna, markaa xoolaha agoonta inuu cuno maaha. carruurtiisa gooni uu u dhalay inuu cunsiiyana maaha, asagoo inuu ku noolaadana maaha. waa khalad. hadda maxaa xal ah? xalku waxa weeye haddaad waaweynaateen ood qaan gaadheen, dee adeerkiin iska cafiya. haddaabad adeerka u naxaysaan, xaqa idinkaa iska lahaa, idinkaana laydin dulmiyey oo xoqiinnii la cunay. haddaad weynaateen oo qaan gaadheenna, xaq baad u leedihiin inaad saamaxdaan. marka haddaad qaan gaadheen, odayga saamaxa, oo muxuu ahay adeerkiina iyo carruurtii walaalihiin ahaayo iyaguna xoolihii wax ka cunay, iska saamaxa oo iska cafiya. haddii aydan qaan gaadhin, wuxuu u baahan yahay odayga in lagu baraarujiyo oo arrinta loo caddeeyo, loona naseexeeyo. wallahu aclam. jazaaka allah khayr wabaarak allahu fiik. saa'ilka 18aad waxau leeyahay, sheekh waxaan joogaa dalka hindiya, waxaanan ahay turjumaan. dadka waxaan ku heshiinaa lacag go-an marka aan wax u turjumayo. markaan dhakhtarka geeyo, qofkii ee hawshiisa loo dhammeeyo, cusbitaalku wuxuu isiiyaa lacag commission ah oo ay leeyihiin maadaama aad qof noo keentay, intaas ayaan ku siinay, oo lacagtii qofka laga qaaday ah. sheekh wax dhib ah miyuu iga imanayaa arrintaas, maadaama aan qofkiina si daacada ugu adeegay oo aanan khiyaamaynin, cisbitaalkiina wax siiyey? arrintaasi waa arrin jirta weeye. marka ay dadka xanuunsanaya ay tagaan hindiya iyo waddamada qurbaha, gaar ahaan hindiya oo loo tago caafimaad loo tago, dad waxaa jira ama barokarro ah ama meehe waxa weeye ardadii jaamacadaha dhigtaa ama dad ka shaqaystaa jira oo isbitaallada iyo dadka u dhexeeya. mar dadkay khiyaamaan, marar badan khaladaad bay galaan. mucaamalada ay samaynayaan isbitaalladii, maadaama dadkii xanuunsanaya ay u dhexeeyaan, u kala turjumayaan, waxaa loo baahan yahay warkoodu inuu cad yahay, dadka inaysan waxba u qarinin, waxbana ka qarinin. ruuxan adeegga iyo khidmaday u qabanayaanna waa inay u caddeeyaan, waxa adeegga iyo khidmada ay ku qaadanayaanna waa inay u caddeeyaan si cad. turjumaanta inaad dadka u turjunto, inaad isbitaallada ku xidho, inaad wakhti geliso, inaad muxuu ahay waa manfaco waaye. adeeggaasi ruuxu waa ku qaadan karaa, laakiin waa inuu dadka runna u sheego, war cadna kula mucaamulo. hadduu wax u qariyo oo laalaab iyo laqdabo oo halkan ka qariyo, halkan wax ka reeyo, halkan wax ka sameeyo iyo wax uu farsameeyo, markaasi waa khiyaano waaye. isbitaalka hadduu wax ka qaadanayo,
waxa uu isbitaalka ka qaadanayo waa inay noqonin dadkan uu adeegayo cala xisaabihim yani isbitaalkii intuu u sadburiyo inuusan dadka dulminin wayna dhacdaa si uu isbitaalka khidmadda uu ka qaadanayo u badsado beeshii la rabay inuu dadkan isaga magaalada jooga isaga isbitaalada yaqaana inuu kala hadlo inuu cadaadiyo inuu wax ugu yar ugu adeego isbitaalkii iyo isaga u kala turjumaya wuxuu sameeyaa isbitaalkii uu sadburin u sameeyaa si khidmadiisu u badato arrinkaas marka waa khiyaano waay laana waa ku aamineen dadkani waadna khiyaamaysa inaad isbitaalkana wax ka qaadato dadkana wax ka qaadato dhima laha laakiin warkaagu ha cadaado inaad isbitaalka wax ka qaadanayso ha la ogaado iyaga inaad wax ka qaadanayso ha ogaadaan waxaad ka qaadanayso ha cadaado adeegaad u qabanaysana ha cadaado inta haddii la helo wax dhiba male wallahu a'lam جزاك الله خير وبارك الله فيك سائلك سؤالتوناد waxa uu leeyahay sheekh gabadh ayaan heshiinay markaan dhamaysanay ayaan ku yiri sheekh qofka wilaayadaada haya waxay igu tiri laba wiil ayaa jira mid uu xanuunsanaya midna waa geel jire kii geel jiraha ahaa ayaan raadinay telefoonkiisii ayaa la waayay bil iyo badh ka badan ayaan sugaynay iyaduna waxay igu tiri gurigiisa in badan ayuu ka maqnaadaa marmarka qaar sanad ayuu maqnaadaa marka sheekh maxaan sameeyaa ma ninkaas ayuun baan sugnaa mise qiil kale ayaad ii haysaa oo aan samayn karo khayr allah ku siiyo Soomaali haddaad ahaan lahayd meelahan aad ka soo guursan lahayd oo waad musaafaysan lahayd waa fiican tahay in la ixtiraamo wilaayada iyo gabdhaha guurkooda in lagu ixtiraamo ehelkooda waana shariicadeenu meeshay martay waa laakiin haddii weligii cuslaado oo la waayo loo fadhin maayo gabadhana guur la'aan noqon mayso loona daahi maayo shariicadu xal kale leedahay waxay leedahay haddii weligii xiriirkiisu adkaado waxaa looga wareegayaa weliga ku xiga walaal bay lahayd labadii walaal mid waa xanuunsan yahay midna geel jiru noqday la waayay sooma haddii labadaa walaal keliya ay ahaayeen wilaayadu waxay u wareegaysaa marka adeer waa in adeer la helo adeer haddii la waayo waxay u wareegaysaa in adeerkeed marka kolba weliga soo xiga ayaa wilaayadu ku wareegaysaa gabadha guurinaya sidaasaa looga baxayaa haddii la waayo raggii hawshaa iska lahaa kulligoodna waa tan soo tilmaannay oo markaa as-sultaanu waliyun man laa waliya lahu ciddii aan weli lahayn aan weligiisa la waayo suldaankaa markaa guurinaya oo ciddii meeshaa markaa aad joogtaan madaxka oo muslimiinta madax u ah ama hadduu jiro qaadi ama imaam ama markas islaamiya ama odaygiiba ayaa markaa wilaayada qaadaya oo gabadha guurinaya wallahu aclam جزاك الله خير وبارك الله فيك سائلك لباتناد waxa uu leeyahay sheekh ajar iyo xasanaad Allah ku siiyo cilmiga aad mad ugu gudbinayso sheekh waxaan isku xanaaqay nin iyo gabadh isqaba gabadhii waxay tiri wardiinta waaban kaaga baxnay oo kristan baan noqonay naga tag markuu ku yiri waad gaalowday ee iga tag waxay tiri waan ciyaaray marka sheekh gabadhaasi ma iga furan tahay waxa ka horeysa ma iga furan tahay ma gaalowday baa ka horeysa gabadhu way gaalowday diintana way ka baxday laana diinta waan ka baxay iyo kristan baan noqday iyo yahuudi baan noqday wax lagu kaftama ma aha Allah tabaaraka wa ta'ala quraanka kariimka wuxuu ku yiri wala in sa'altahum la yaquluna inma kunna nakhudu wa nal'ab war waxan maxaa idin geeyay markaad ku tiraahdo waxay ku dhahayaan sheekada baa nala gashay waana ciyaaraynay qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un ma Allah iyo rasuulkiisa aayadkiisa ku jeesteesayseen qad kafartum ba'da iimaanikum iimaan kadib waad gaaloodeen buu Allah marka waa ciyaaraynay iyo waa kaftamaynay iyo sheekada nala gashay iyo waxba lagama soo qaadin waad gaaloodeen baa Allah laguma kaftamo marka gaal baan ahay iyo waan kirishtaamoway iyo yani waan ciyaaraya waan ku kaftamayaa suurtagal ma aha saas daraadeed gabadhu way gaalowday diinta ka baxday
hadday diinta ka baxday xadhiggii idinka dhaxeeyey wuu go'ay haddayna horay aydaan gogol ugu kulmin oo guurkiinnu cusbaana caamatul culamaa waxay qabaan markaaba inay furmayso haddaad horay u kulanteen oo gogol idin dhex martayna laba madhab ay qabaan culimmadu qaar waxay leeyihiin markaaba xadhiggu wuu go'ayaa oo waa maalikiyada iyo xanafiyada iyo riwaaya cinda alxanaabila waxay leeyihiin markaaba xadhiggu waa go'aya shaaficiyada iyo riwaaya xanaabilada ka mida waxay leeyihiin way furmaysaa laakiin furitaanku inay furanto xadhiggu uu go'o waxay ku xidhan tahay inay ciddada ka baxdo iyadoon soo noqonin intay ciddada ku jirto hadday islaamnimadii ku soo noqoto xadhiggii hore weli waa jiraayo way ku wada joogayaan haddii ay ciddada ka baxdo iyadoon islaamnimada ku soo noqoninna xadhiggii markaa horuu go'ay waa madhabka shaaficiyada madhabka waddankeenna laga haysto waa marka labadaa ra'yi bay u kala duwan yihiin laakiin inay furmayso qolana ha yidhaahdeen ciddadaa lala sugayo hadday soo noqoto xadhiggii waa jiraa qolana ha yidhaahdeen maya xadhiggu markaaba waa go'ayaa inay riddadu ay furitaan keenaysana ayaduna masaladeedu sidaas weeye arrintaa marka waxaan doonayaa inaan baraarujiyo soomaalidu way fududdahay hadalla aad u fudud waxaa jira ay si fudud isaga dhahaan gaalnimo iyo halisna keenaya sidaas daraaddeed waxay u baahan tahay inuu ruuxu aad uga fiirsado waxyaalaha diintiisa iyo caqiidadiisa dhaawac u geysanaya kelimo kaa soo baxday ayaad naarta waxaad ugu arooraysaa 70 sano kelimadaasoo aad adiga aan wax weyn kula ahayn oo meesha inay gaadhaysaba aadan u haysanin sida nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam marka hadalka waa lagu gaaloobaa ficilkana waa lagu gaaloobaa gaalnimada inaad u qasadana sharti maaha gaalnimada markaad gaaloobayso gaalow inaad u qasato sharti maaha marka waa halis waaye in aad isaga ilaaliyo u baahan tahay wallahu a'lam jazakallahu khayr barakallahu fiik su'aasha 21aad sheekh baryahan waxa suuqa ku soo batay lacagaha sarifka online-ka ah oo magacyo kala duwan midba mar la baxayo waxa jirta mid la yiraahdo BCEX oo ah nin broker ah ay dhalinyaradu sii marayaan sida uu shaqeynayo isaga ayaana suuqa galaya oo suuqa online-ka ah macnaha dhex galaya kadib linkigiisa ayay soo wada galayaan dhalinyartii 40% isaga ayaa qaadanaya shaqada ay qabanayaanna waxa weeye maalinkii ilaa 4 jeer ayuu linki u soo dirayaa koodhka u soo dhaca kadib muddo 10 daqiiqo ah ayaa la rabaa in koodhkaas group kale uu ku baasti gareeyo intaas kaliya ayay iyagu shaqada ku leeyihiin qofka uu ka lacag badan yahay ayuuna ka faa'iido badan yahay sheekh xukunkeeda arrintaasna noo cadeysa ayaan rabnaa intaasoo goor baa laydinku dhacay ima ilbaxdaan miyaa idinka waxaa lagu leeyahay online iyo ganacsigiisa iyo sarifkiisa iyo soomaaliya horey ugu rogmatay inta badan waxyaalaha noocan oo kaleeta waxaa sameeya nasbi iyo ixtiyaal baa la dhahaa yacni magacyo been abuuradaa la samaysan shirkado been abuuradaa la samaysan online-kaasaa la soo gelayaa wax ganacsi la samaynayaa la iska dhigayaa faa'iido waxaa lagu sheegayaa aan caadi ahayn soomaaliduna wax ka damac badan waa yaryahay soomaalida waxaa faa'iido waxoogaa u sheeg khatartaba ma arkayaanba war meeshan khatar baa ka soo socota maantana haddaad ku akhrido waxoogaagaasaa u muuqda kambaniyadaas waxay samaynayaan marka way isu kaa daadinayaan inta hor oo dhan faa'iido badanoon adduunkaba laga helinna way ku siinayaan waa lagu soo daadanaa marka waa la isu sheegi soomaalidu oral society waay xaggii xaggaa la isgaarsiin war ma maqasheen daruurtii xaggay ka hortay mashriq iyo maqrib marka waa lagu soo daadanaa goortay waxoogaa urursadaan bay khadka ka baxayaan waa xaggeed ka raadinay yaa brokerkii ma taqaanid kamaniga ma taqaanid shakhsiga ma taqaanid
وأون كعمها كلو الرقبة هي محايق هي مركا أنت صغور بان كدقنا وحيالها النوع عنه الصومالي له رعي لكن ماني والبدقن مويدو ماني والبمد حرن أو يعني وحبا أن لسعنين وأدون كان لسعنين موايان كان بنيدي الشخصيات كنوعا الصومالي نصاصي وبضت تدري بادية أو وحبا لسعنين وأدون كسيد الله يصور عيو حالتها كسعود أن لسعنين بيوبدين دمحا إيهم قولي وين كاسنو ودري ماني والمركة العقود والحابسنين ويل يرى اللي يرى بود يسوي إنه فقير يا واحد مقلي سابق قول كونه $1 بالله قناع وكاله مركي اللي يدلعون بالعكتي نصوب حدا ميا يدك وحيالها سي مركي وحيوبها هي صوماليا أدون كان وحاك الصعود وحيدا أوجين أدون كقول واهرا لسوا حاله فيه وكان بنيادني سوا حاله فيه هل كان نيروبي فورس مع بالك اللي يجي مع فوركسكي يقبل $1 بالغ دعاء ميد با كدن بيسي مردو انت $1 مليون با سومالي لغا دعاي ككريميس ور كجوغا ور waxan sax ma ah war horaa looga hadlay war caalamka war wax la yaqaan waay laga karimaay muamaladani muamalo shirta haday tahay xataa muamalada cid qabanaysaay waxa la isdhaafsanay waa lacag غالبا wasiid ba dhexda ku jira banki ah lacagaha la kala rogayaan lacagaha la kala rogayaay shuruudii shariicadu u dejisay ribada lagaga ilaalin lahaa lagama ilaalinayo marar badan waxaynan haynin bay iibinayaan muamalo gaal u gacan gashay ama wax la mid ah kilib yar bay soo direen oo leeyihiin cidda ka fatwootay masaa'isha yaa ku qoran cidda ka fatwootay ma taqaana meesha ku qoran waa Khomeini Khomeiniga Iran ayaa ka fatwooday baa meesha ku qoran oo Soomaaliya oo goorbaad Khomeini sheekh ku noqday adiga waxa si marka wax weey muamalaad khaldan waaye culimada muslimiintu hore uga hadleen mukhaadara ku jirta jahala ku jirta qarar ba ku jira riba gasha yani waxa weey xoolahaagiyo khatar gelinaysa ku jirta waxa si Soomaaliya ka ilbaxa hadaad ganacsi doonaysaan ganacsi waa kanaad ku jirtaan laakiin online ba inta lacag la kaliyo ya جروب كا وحكود دير بالله وروح جناعش ما وحير بالله صوت وري هذا نطور وهذا نالك كود رانت وحس الشقمة وأرين دبين لدور إن اللي يكون صوت دوا حوريه إننا نلقو قادنا يو حولها إن لا مخاطرة للجريو معاملات قالها كعنت كوها يانا حولها قاعد جلس هل كان في ربح فائدة كراديسو شرعا ما بنانا لأن وحوي واحد كجناحسن يسنا والعقنا وميلها أوبدن الرباط وكشو lacagaha iyo ka ganacsigooda iyo sarifkooda iyo dahabka iyo fidada iyo ribo meeshaas fadhida saas qaraadib shuruud adag shariicadu u dejisay waa in la kala qaato waa in shartigu sidaa yahay waa in la hubiyo waa in kan saasa macnaha lagu salay marka xoolahana ha khatar gelinina xaraana ha guranina wallahu a'lam jazakallahu khayr wa barakallahu fiik halka waxa inoogu dhamaaday fadhigii saddexaad barnaamijkeena fatawa ramadaaniya oo noqonaya fadhigii ugu dambeeyay maadaama oo ay filayna inay insha Allah ama la hubaba maanta maalinteeda inay aanay ramadaan ahayn insha Allah taala ilaahay nabad hayna ugu dhameeyo bisha inta ka dhiman Allah hayna naga aqbalo acmaasha sheekha ilaahay subhanahu wa taala ha barakeeyo saddexda fadhi 62 su'aalood ayuu kaga jawaabay ummadda Soomaaliyeed ee su'aalaha soo qortay oo runtii iyo arday dadka soo qoray su'aalaha aad iyo aad bay runtii u fara badan yihiin annagu intii awood ahayd waan dadaalnay dadka wixii aan gaari weynay ama la haleeli waayay laba mid weeye dad su'aalahooda hore looga jawaabay oo aad u soo noqday kuwa waan iska dhaafnay guud ahaanba iyo dad jaanisku saamixi waayay sababta usbuuci kaliya wax laga yaabaa in dhowr boqol oo su'aalood ay soo gaadhaan marka iyagana insha Allah taala cafis baan ka dalbanaynaa wixii aan taqsiir iyo gaabis sameynay inta awoodeeda ahaydna waan dadaalnay idinka aad iyo aad baa mahadsantihiin dhageysigiina sheekhana ilaahay subhanahu wa taala ha barakeeyo allana subhanahu wa taala cilmigaas faraha badan leh ee fadhiyada kooban inooga jawaabay qaybaha kala duwan ay su'aaluhu ka imanayeen runtii uu inoogu faahfaahiyeen ilaahay subhanahu wa taala ka abaal mariyo
إلهي سبحانه وتعالى علم جيسة عقل جيسة عود كيسة عدود جيسة عرور جيسة أهل كيسة أنت ما إلهي سبحانه وتعالى هو بركيه إلهينا سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك هو عسليه تدالك يا جهد جاس وسمينيه إننا إلهي سبحانه وتعالى علم غفرها بدل لنا قاعدني سيدا فروضا ينكحلني العقلان تاع ينكحلني إلهي سبحانه وتعالى إننا أينقوا أنفعوا هذه دوما سنتين فدقوا الكاسين وبحريه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته